guddiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa soo saaray saqdi dhexe xalay warqad lagu dalbanayo in la joojiyo doorashada kursiga uu tartamayo Fahad Yaasiin ee 20 bishan ka dhacaysa Beledweyne. wasaaradda warfaafinta gaar ahaan TV-ga qaranka iyo wakaaladda wararka Sona ayaa ka soo xigtay guddiga warkan ah in la joojiyay kursiga uu Fahad Yaasiin u taagan yahay, laakiin 30 daqiiqo kadib isbedel kale ayaa dhacay. guddiga ayaa warqad kale ay soo saareen ku sheegay in bogoodii uu ka baxay gacantooda isla markaana uu qalad ahaa warkii lagu qoray. sidoo kale guddiga doorashooyinka Hirshabelle ayaa ku gacan sayray warka ka soo baxay guddiga doorashada heer federaal. saacadihii hore ee saaka ayaa mar kale bog rasmiga ee guddiga doorashada lagu soo qoray in kursiga Fahad aana laga soo gudbin wax cabasho isla markaana ay doorashadiisu ku qabsoomi karto sidii loogu talagalay. wararkan iskhilaafsan ayaa jahwareer geliyay saaxadda siyaasadda Soomaaliya xilli Fahad Yaasiin loo arko inuu yahay xildhibaan dooran ka hor intaysan doorashadiisu ka dhicin magaalada Beledweyne. Fahad ayaa diyaarsaday ergadii dooran lahayd oo maanta laga dejiyay goob gaar ah oo ku taala Beledweyne, isla halkaas ayaana lagu wadaa in doorashadiisa ay ka dhacdo. kadib dagaalo ciidamada dawladda u dhaxeeya oo Beledweyne ka dhacay isla markaana uu ku dhintay taliyihii booliiska magaalada ayaa keenay inuu Fahad ku kalsoonaan waayo ammaanka magaalada xaruntu ah gobolka Hiiraan, waxaana haatan doorashadiisu ka dhacaysaa xarun ay waardiyeeyaan ciidamada AMISOM iyo xubno ka tirsan ciidamada NISA. la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale u hanqaltaagaya inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka soo socda. haddaba yaa ka dambeeyay go'aanka guddiga doorashada ee jawiga kacsanaanta ah geliyay xaaladda siyaasadda Soomaaliya. Fahad waxaa la rumaysan yahay in kursigan loo dhacayo musharaxiintii la tartami lahayd ayaa loo diiday inay isdiiwaangeliyaan. Faarax Cabduqaadir oo kursigan ku fadhiya ayaa isna tartanka ka hadhay kadib markii fursad loo sii waayay inuu soo sharaxo. laakiin waxaa sheekada qaraareeyay warar maalmahan si weyn u soo baxay oo ah in ra'iisul wasaare Roble uu dadaal ku bixinayo in Fahad Yaasiin uusan ku guuleysan kursiga. Fahad iyo Roble waxaa dhex taala cadaawad ka dhalatay khilaafka filla Soomaaliya iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha. wararku waxay sheegayaan in xubno ka tirsan guddiga doorashada ay si ku talagal u baahiyeen warkan Fahad looga hor istaagayo in doorashadiisa qabsoonto. haddii se run tahay in Roble iyo saaxiibadiisa guddiga doorashada ay ka dambeeyaan talabada, Fahad waxaa haysata arrin culus. guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kuwa xalinta khilaafaadka ayaa ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha. xildhibaanna ma noqonayo xubnaha la soo doortay ilaa ay iyaga ansixiyaan oo ay shahaadada siiyaan. haddii Roble uu doonayo inuu hor istaago Fahad, waxaa ku filnaan karta in loo diido shahaadada xildhibaannimo, mase muuqato in talabada la qaadayo. haddaba daawade, waa maxay fikirkaaga ku aadan arrintan? qaybta hoose inoogu reeb jawaab celintaada.